kulan waxaan daawaday waxaad ku soo dhawaataa kanaalkeena cusub ee Leeway Films. haddaba haddaad ku cusubtaa kanaalkeena subscribe dheh, like, share, comment intaba israaci gambareekna furo si aad u hesho macluumaadka ugu dambeeya ee warbixinadeena aan soo dhigayno ee la xiriira arrimaha Hindiga. haddii aan ku bilaabno warbixintana maanta waxaan ku eegi doonaa atooraha ugu guulaha badan India uguna shacbiyada badan caalamka. waa atooraha heesta abaalmarin walba oo shakhsi filim jelista u tartamay. marka laga reebo national award ee dowladda Hindiya ay bixiso, qof kale ma aha waa Shahrukh Khan, atooraha labaad ee dunida ugu taajirsan. warbixintan ayaan ku jeexi doonaa sidoo xidig sare ku noqday iyo hadalada laga qoray xidigan dhiirigelinta ah. aan ku bilaabno hadaladiisa atoorahan caanka ah ee Shahrukh Khan. waxaan had iyo jeer ka argagaxsanaa guuldarada marabo si aadka aan u guuleysanayo, haddana si aadka aan u rabo in aan u guuldaroobo. waxaan ka soo jeedaa qoys dabaqada dhexe ah. waxaan soo arkay guuldarooyin badan. aabahay wuxuu ahaa shakhsi aad u fiican, sidoo kale uguna guuldarada iyo guulaha badan ee adduunka. hooyaday sidoo kale waxa ay ku guuldareysatay inay inta badan ila joogto ayna aragto inaan noqday xidig weyn ee filimada jila. xilligii hore markii waalidiinta ay dhinteen waxa ay la degtay saboolnimo ay la jirto guuldarooyin, man rabin inaan faqiir ahado. xidiga caanka ah ee Shahrukh Khan ayaa sidoo kale kan lagu haray hadalada micnaha ximbaarsan ee xagga nolosha ayaa ka hadlay soo galitaankiisa filim jelista, sidoo kalena ka hadlay wax uu la kulmay safarkaasi. markii aan helay fursad ah inaan filimada jilo, ma ahayn wax ku abuurmay rabitaan, waxayse ku imaaday baqitaan, guuldarooyinka iyo saboolnimo. dhammaan filmadii aan saxiixday waxay ahaayeen filmo oo actor caan ah oo iska diiday. waxaan anigu u sameeyay inaan hubiyo inaan shaqeeyo kana hortago shaqo la'aanta. waqtiga iyo shayguba way saxsanaayeen. Shahrukh Khan ayaa sheegay inuu si adag u shaqeeyay si uu u noqdo xidiga oo maanta uu yahay, waana xidig qaabjilinkiisa aadka u sareeya. si adag ayaan u shaqeeyay, waxaana jirta dad kale oo igu hareereysanaa. waxaan noqday xidig weyn. guusha waa shay cajiib ah, laakiin sina uma aha khibrad la dhaxlo. xidig ayaa ka hadlay raaxada ay leedahay guul la gaaro. waan ku raaxaysanaa, laga yaabaa inaan u qalno, laakiin kama helayno xikmad. sidaas darteedna waxaan aaminsanahay inay tahay dariiqada dhabta ah ee guusha, si lamid ah cabsida guuldarada. haddii aadan ka cabsanaynin in kugu filan inaad guuldareysato, markaasna si uma lihid inaad guul gaarto. hadaladaasi waxaa yiri aktarka caanka ah ee Shahrukh Khan. haddaba daawad warbixintan ayaa intaasi ku eg.